السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدبن إدين سلامة يا صاحبة إذا كحرن كان كان خالد فايدو صوبته وحن آدي هذا وحماي وقت بدن أو أن كم غنا كلنكا سبب شراء ودد وحننش على مر بين الناس وجبيو وحيابا أنا أركو إني مهم أما ضدك حسين يان أما ضدك تعليهن إني أجادان بدنا وحين حوج صارنا مركزتا وحين وارجنا إني فايدتها haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe noo saar like tuna waxay naga caawinaysaa in dad badan gaaro muuqaalku inoo saar sababtoo ah anaga muhiimad gaar ah ayay noo leedahay waayo dad badan haddii uu gaaro muuqaalkeenu waxaan ku dhiiranaynaa inaynu sii badino muuqaalada noocan oo kala maanta waxaynu ku hadlaynaa dad kale dabeecadaha dhiiga oo balaas ama dabeecadaha ay leeyihiin dadka dhiigoodu yahay oo balaas haddii ay dhiigaagu oo balaas yahay halkan aad ku ogaan doontaa sidoo kale haddii aanad aqoon dhiigaagu nooca uu yahay waxaad ogaan doontaa markaan dabeecadahan ku sheego inuu dhiigaagu oo balaas yahay haddaba si aad u dhamaysato muuqaalka fadlan waxaan ka codsanayaa mar labaad iyo mar saddexaad inaad like-ta noogu celiso waayo waxa naga caawinaysaa inuu dad badan gaaro muuqaalku haddii aynu ku soo dhawaano qodobka koobaad ama dabeecadda koobaad ay leeyihiin waa dad isku kalsoon nafsiyan dadkan dhiigoogu oo balaaska yahay waa dad isku kalsoon isku kalsoonida marka laga hadlayo qaafba waxba u fasisha kalsoonidu meel walba ay gali kartaa hadalkay kalsoonida gali kartaa socodkay gali kartaa jidhka gali kara meel kasta way gali kartaa kalsoonidu qofkaas uu isku kalsoonyahay marka lagu raado waa qof dhameystiran dhinac walba ama waxba ka cabsan ka labaad waa qof bulshaawiya oo dhaqanka dadka uu kula dhaqmaana aad u wanaagsan yahay haddii aad tahay qof kale dhiiga oo balaas dabeecadahaagu aad ay u wanaagsan yihiin dadkoo dhanna aad ayaad ula saaxiibi kartaa dabeecadahaaguna aad bay u wanaagsan yihiin qodobka saddexaad dadkani waa dad aan ka dhex noqda bulshada ay ku dhex nool yihiin haddii aad leedahay dhiigan oo balaas ama dhiigaagu yahay oo balaas waxaa tahay dad ka dhex muuqda dadka kale sababtoo ah waxaa tahay qof cid walba raali gelin kara sida aawadeedna waxay ku saamaxaysaa inaad ka dhex noqoto dadka caan qodobka afraad waa dad soo jiidasho leh qaabka muuqaal ahaanteena waxaynu ognahay qof walbaaba inuu abuur gaar ah Ilaahay u abuuray suuradii ugu wanaagsaneedna uu abuuray balse dadka lagu sheegay ee dhiigoogu oo balaaska yahay waa dad muuqaal ahaantooda xataa soo jiidasho leedahay ama muuqaal ahaantooda adigoo aad jeclaanayso qodobka shanaad waana dad adkaysi badan dhan waliba haday noqoto xataa dhanka caafimaadka dadkan waxa la sheegaa xataa xanuunada inay u adkaysan karaan si lamida dadkan kale ay ugu soo degdegaan inay xanuunada adag tahay inuu degdeg ugu soo boodaan dadkani waa dad adkaysan kara wax kasta haddii ay noqoto dhibaato kaga timaada dhanka familka dhibaato kaga timaada dhanka asxaabtiisa iyo dhibaato kaga timaada dhanka qaraabadiisaba haddii aynu ku soo dhawaano qodobka kaad waa dadka dunida ugu hurdada jecel dadkani waxay aad u jecel yihiin waa hurdada waxay aad iyo aad mar walba u jecel yihiin inay seexdaan ama hurdo ku filan ay helaan sababtoo ah jidhkooga ayaa u abuuran in ay hurdo badan helaan haddii kale ma nafisi karaan qodobka toddobaad dadyowgani waxa ay guursadaan qof qurux badan haddii ay gabar tahay waxa ay guursataa wiil qurux badan haddii uu wiil yahayna waxa uu guursadaa gabadh qurux badan sababta aan taa ku leeyahayna waxay tahay waayo waxa uu saamaxaysan bulshadii oo dhan ayuu asxaab leeyahay ama saaxiib leeyahay taasina waxay sahlaysaa inuu si tartiiba cid walba ku hanto qulubteeda ka sideedaad dadkan intooda badan waa dad jecel inay cunaan hilibka dadkan waxay aad iyo aad u jecel yihiin inay cunaan hilibka sababtoo ah jidhkooga ayaa u abuuran inay dadkani badankoogu jecel yihiin inay hilibka cunaan qodobka sagaalaad haddaan ka soo dhammaano dadkani waxa ka soo baxa siyaasiyiinta la taliyayaasha iyo dadka caanka ah iyo dadka suuqgeynta ku fiican sababtoo ah dadkani waxay ku fiican yihiin dadla dhaqankii taasina waxa u saamaxaysaa inay wax walbaaba awoodaan inay sameeyaan la taliyayaasha waxay noqdaan dadyowga caanka ah suuqgeynta ama marketingkana aad ayay ugu fiican yihiin qodobkeena u dambeeyeen ku soo afmeerana muuqaalka dadkani ma aha dad dabeecadahooda la saadaalin karo oo waayo si dadka dhexdhexaad ah ayay ula hadlaan cidna dhinac ma saaraan marka ay arrin xalinayaan waayo mar walba waxay joogaan meel dhexdhexaad ah taasina waxa u saamaxdaa inaana dabeecadooda si dhaba u fahmin ama aad adigu marka uu ku hiilin waayo aastiraado qofkani tolow miyuu ka xun yahay balse uu runta mar walba ku dadaalo waxaan rajaynayaa muuqaalkani inuu anfacay sidoo kale waxaan iga codsanayaa haddii aad dabeecadahaas aad leedahay waxa aad leedahay dhiiga oo balaaska bishaarayso waxa tahay mid ka mid ah dadyowga ugu fiican ee adduunka ku nool waxaan rajaynayaa dad badan inuu anfacay muuqaalkan intaynu ku kulmi doono mid kan lamid ah waxaan igaga tegayaa wassalaamu calaykum